السلام عليكم. halkan waa Hanweyn Media hoyga cilmiga iyo tiknoolajiyada. Haddii aad jeceshahay horumarkeena, fadlan channelkan subscribe inoo dheh, kuna xirnaa goor kasta oo noqo dhiirigeliyaheena koowaad. waad ku mahadsan tahay booqashadaada. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنا ونكسد ودياشنا قيمها يقايا نقمض ميل الباجوكتان waxaad ku soo dhawaataan muuqaal cusub. muuqaalkan insha Allah waxaan ku baran doonaa qaabka loo ogaado xawaaraha website-yada. balse daawada haddii ay tahay markii ugu horreysay sabaqo channelkan Hanweyn Media waxaan ka codsanayaa inaad subscribe inoo saarto, sidoo kale aad furto gambeelka si aad u noqoto qofka ugu horreeya ee mar waliba hela muuqaaladeena cusub. sidoo kale ha ilmaamin inaad like, share iyo comment aad inoo siiso muuqaalkan. mahadsanid, weligaana guuleyso. soo dhawo markale daawade. dabcan muuqaalkan insha Allah waxaan ku baran doonaa qaabka loo ogaado xawaaraha website-ka aad isticmaalayso. dabcan website-yada marka ay soo kacayaan qaarkood si dhaqso leh ayay u soo kacaan, qaarna muddo kadib ayay soo kacaan. dabcan way ku soo kala horeeyaan qaabka loo soo kacayo marka aad ka shaqaysiinayso website-ka ama aad adeegsanayso. sidoo kale waxay ku xiran tahay aaladaha la isticmaalayo. haddii aad isticmaalayso computer iyo haddii aad isticmaalayso telefoon way ku kala duwan yihiin qaabka website-ka u soo kacayo iyo dhaqsiyaha uu kugu soo jawaabayo. haddaba si aan u ogaano website kasta dhaqsiyaha uu ku soo jawaabo iyo xawaarihiisa inta uu leeyahay, waxaad imaanaysaa qaybta searching-ka ee Google. waxaad ku qoraysaa page speed insights kadibna enter kadib waxaad imaanaysaa qaybtan ay ku qoran tahay page speed insights oo ay iska leedahay shirkadda Google. website-ka lagu aqoonsan karana waa developers.google.com. marka kaas ayaad ku dhufanaysaa. dabcan waxaa ku keenayaa qaybtan halkan oo qaybtan searching-ka ahna waxaad gelin doontaa dabcan website-ka addresskiisa ama URL-kiisa. marka hore website-ka soo kici. dabcan aniga iminka waxaan haystaa laba website oo midna uu yahay live score oo ah website lagu ogaado ciyaaraha live-ka socda iyo natiijooyinkooda. midka kalena uu yahay goobjooga news oo ah website laga daalacdo arrimaha siyaasadda iyo wararka la xiriira gudaha iyo dibadda. haddaba marka hore website-ka tag. marka uu sidan kugu soo kaco qaybtaas sare halkaas ayaad ku dhufanaysaa. kadibna control A dheh, kadibna intan koobiyey ama control C dheh ama muuska ama touchpad-ka dhanka midig ku dhufo, kadibna koobi dheh. kadib waxaad ku soo laabataa website-kaagii. waxaadna gelinaysaa qaybta soo koobiyeysay halkan, kadibna paste ku dheh ama control V isticmaal ama paste caadi ka isticmaal touchpad-ka muuskaaga. kadib intaas markii aad samayso waxaad leedahay qaybtan ay ku qoran tahay analyze ayaad ku dhufanaysaa. dabcan imika waxaa socota shaqada ilaa laga gaaro 100na waan sugaynaa. markii uu shaqada dhameeyo ayuu kuu sheegi doonaa website-kan xawaarihiisa inta uu leeyahay marka laga isticmaalayo telefoonka ama computerka. dabcan imika uu soo kacay halkan ay ku qoran tahay mobile. haddaad fiiriso dabcan marka laga isticmaalayo website-kan mobilada, qofka isticmaalaya mobilka xawaarihiisa aad ayuu xogaa u liitaa maadaama uu yahay 59. saas macnaheedu waxay tahay in mobilka marka aad ka isticmaalayso website-kan uu xogaa soo daahayo si dhaqsin uusan ku soo kacaynin. qaybta labaad desktop-na waxay ku tusinaysaa in website-kan live score marka laga isticmaalayo kombiyuutarada uu si dhaqsi leh ku soo kacayo isla markaana ka xawaaro badan yahay marka loo barbardhigo telefoonka. sidoo kale markaan waxaad tijaabiyeynaa website-kan labaad. waxaad imaanaysaa qaybtan kore ee ku qoran tahay goobjoog.com. halkaa ku dhufo. dabcan kadibna control C ama copy dheh. kadib waxaad ugu soo laabataa website-kaagii. qaybtan searching-kana dabcan ka tirkii hore kadibna paste dheh ama control V
kadibna waxaad dhahdaa analyze dabcan qaybtan koowaad mobilka marka aad imaato waxaad arkaysaa in website-kan goobjoog marka laga isticmaalayo telefoonku aad u hooseeyo yahayna 18 halka marka aan ku dhufano desktopna una siinayo xawaare dhan 67 taasoo macnaheedu yahay in computerka marka laga isticmaalayo website-kan goobjoog uu ka xawaare sareeyo marka la bardhigo telefoonka dabcan sidan ayaa lagu ogaadaa website kasta xawaarihiisa inta uu leeyahay haddii laga isticmaalayo telefoon ama haddii laga isticmaalayo computer waxaan rajaynayaa muuqaalkan inaad wax badan ka faa'iideen isla markaan aad ku barateen qaabka loo ogaado xawaaraha website-yada aan isticmaalayno markaan adeegsanayno telefoonadeenna ama kombiyuutarradeenaba haddaba walaal muuqaalka intaadan ka bixin waxaan kaa codsanaynaa haddii aad ku cusub tahay kanaalka inaad subscribe noo saarto muuqaalkan aad like noo siiso waad ku mahadsan tahay dabcan daawashada muuqaalkeena muuqaalka xiga intaan kulmi doono waa walaalkiin cabdirasaaq cabdullaahi oo ku dhaafaya sida ay nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh